hagaag waxaa noo suuro gashay in aanu qadka telefoonka ku wareysano wasiirka arrimaha gudaha dowladda Puntland mudane dhaban cad oo aan wax ka weydiino dagaal maanta ka dhacay agaarka degmada Tawfiiq oo ka tirsan deegaanada Puntland ama xadka u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland. wasiir bal marka hore dadku waxay aad u wardhowrayaan sida wax u dhaceen. بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan rabaa marka hore inaan ku saxo deegaanku ma ahan deegaan u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland meesha dagaalku ka dhacay waa Tawfiiqna waa degmo ka tirsan Puntland su'aashaada hadaan u laabto dagaalku sida ay dhici karto inaad dadku wada maqashiisoon yahay ama badankiisu maqashiisoon yahay wuxuu daba socday dhacdooyin aanooyin ah oo maalmahan dambe dhacayay oo u dhaxeeyay dad walaalo ah oo deegaankaas degan oo ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug oo dhowr dhacdo ay soo dhaceen kadibna maalin afraad ayaa waxaa jiray dagaal daba socday aanooyinkaas oo dhex maray laba ciidan oo labada dhan Tawfiiq iyo ciidan ka yimid dhanka Afbarwaaqo ay ku dhex maray labada deegaan u dhaxeeya labada magaalo halkaas oo khasaare ka dhashay dagaalku marka maanta dhacay wuxuu daba socday dhacdooyinkaas hore aanooyin ku salaysnaa maxaa khasaarayo ka dhashay dagaalkii maanta wararka hore dhaca aanu helayna waxa weeye in khasaare aad u badan uu ka dhashay oo dadkaas walaalaha meesha ku dagaalamay uu soo gaaray labada dhinacba dad badan ay dhinteen dhanka Puntland reer Tawfiiq xogta aanu helayna waxa weeye in geeridu ay dhowr iyo 10 tahay dhinaca kalena waxaanu ka helaynaa iyadana inay dad tiradaas ama ku dhawaay iyagana dhinteen weli faahfaahintii ugu dambeysay ma hayno oo lama soo ururin laakiin khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayaa jira labada dhan waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya Puntland gaar ahaan adigu hadal aad tiri in lagu sheegay Galmudug in lagu eedeeyay dagaalka inay ka dambayso oo dhanka Puntland ay sidaas laga soo xigtay maxaa arintaas kaga jawaabaysaa ama ka leedahay ugu horeyn aad iyo aad baan waxaan uga xunnahay dagaalka ka dhacay Tawfiiq ama ha noqdo kan maanta dhacay oo runtii dagaal uu ka dhashay khasaare aad u ballaaran ama ha noqdo kuwii ka horreeyay isdaba socday ku salaysnaa aanooyinka iyo dilalka maaragtay qorshaysan meeshaas deegaanadaas ka dhacayay ee dhex marayay dadka walaalaha ay ka kala tirsan Galmudug iyo Puntland runtii waa nasiib darro aad iyo aad baan u dhaleecaynaa dadka ka dambeeyay weerarkaas abaabulan ee maanta ka dhacay deegaanka Tawfiiq mana ahayn dagaal maanta loo baahnaa wuxuu ahaa dagaal runtii foolxuma ama ha noqdo kan dhacay ama ha noqdo kuwii ka horreeyay dagaaladan sababay inay maanta ay dhacaan aad iyo aad baan uga xunnahay maanta sanadka la marayo khaasatan gobolka Mudug oo aynu ognahay nabadii dhowrka sano laga soo shaqeynay Puntland iyo Galmudug dadka walaalaha ay labada maamul ka kala tirsan ay ka soo shaqeynayeen isimadooda iyo oqaashooda iyo waxgaradkooda iyo dhalinyaradoodu in dagaal xadkaas leeyo maanta dhex maro dadka walaalaha aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa dadka arrintaas ka shaqeeyay yaa markay ka shaqeeyay oo aad ogsoontihiin aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxa intaa dheer arrinta la xiriirta inaanu ku eedeynay Galmudug annagu kumaanaan eedayn waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye inta hadda xasaradan taagnayd Galmudug iyo Puntland madaxdeedu si toos ah ayay uga wada shaqeynayeen oo aad u dhow in xasaradaas la damiyo dagaal dambana uusan halkaa ka dhicin ha noqdeen madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland Ciid Cabdullaahi Deni iyo mudane Xaaf ha noqdeen wasiirada Galmudug iyo Puntland oo aanu si toos u wada shaqeynaynay ha noqdeen gudoomiyaasha gobolka Mudug Puntland iyo Galmudug ilaa gudoomiyaasha degmooyinka aad ayaa loo wada shaqeynayay in laga hortago xasaradaas inay fido mana jirin dhaleecayn aanu dhaleecaynay Galmudug inay arrintaas iyadu weerarkaas soo qaaday laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye ciidanka weerarka soo qaaday maanta ee soo weeraray Tawfiiq inay yihiin ciidamo ka tirsan Puntland maxalliga ka tirsan Galmudug taas ayaanu ka hadalay oo maaragtay aanu sii deynay maanta oo aan sii daayay marka ciidamada iyo Galmudug ka tirsan oo dagaalkan aad ku saan sheegayba dagaalada hadda dhacayay waxay salka ku hayeen waxa weeye aanooyin soo socday hase yeeshee haddii cid maanta lagu eedeynayo arrintaas waxa lagu eedeynayo waxa weeye mas-uuliyiinta dowladda federaalka Galmudug waxaa jiray maamul
hoggaan oo shaqaynaya oo gacanta ku haya qayb weynna ka ahaa ka shaqaynta nabadda gobolka mudug puntlandna ay mar walba ka wada shaqaynayaan arrimahaas habaca iyo maxaa la yidhaha furfurka ka jirana mas-uuliyaddeedu meel ayay saaran tahay ciday saaran tahana waa dowladda federaalka weeye oo maantay mas-uuliyiinta ka shaqaynaya amnigaas iyo nabaddaas iyo haykalkii dawliga aha ee ka jiray galmudug ayagu meesha ka saaray marka haddii cid lagu dhaleecaynayo adeer kuwaas ayaa lagu dhaleecaynayaa waxaad sheegtay oo hadalkaaga ku jiray wasiir ciidamo galmuduga in ay dagaal ka qayb galeen maamulka galmudugna iidan ku eedayn dagaalkan sida madaxdooda oo kale dowladda federaalkana waxaad ku eedaysay dagaalkaas inay ku lug leedahay markay dowladda federaalka haddaan ciidan meeshii u joogin galmudug ciidankeedii aada eedaystay madaxdiina aadan eedayn micnaha hadalkaas sidee laisu waafajinaya oo eedda ay ku yeelantahay waxaa la isku waafajinaya waxa weye dowladda federaalka waa dowladdii dalkan mas-uuliyaddeeda haysay khaasatan hadda eedda ay ku leedahana waxa weeye madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo haykalkii dawliga ah ee ka dhisnaa galmudug ayaga ayaa meesha furfuray oo ka saaray ayaga ayaa kalifay habaca maanta ka jira sababtoo markii ay jireen nidaamkaasi oo uu shaqaynayo xoogga lahaa ma jirin hadda waxyaalahan dhacaya inay sidaan u dhacaan umana dhaceen horena madaxdeedu waa uga hadashay oo madaxweyne xaaf waa uu ka hadlay eedaas halkaas ayay ka qabsanaysaa ugu yaraan tan ka hadlaysa ciidanka maxaa la yidhi in ciidanku ay yihiin ciidan galmudugna ciidanku maanta ciidamada soomaaliya ka jira ciidan walba waxa weye wuxuu ka tirsan yahay beeluhuna waxay ka kala tirsan yihiin maamul marka ciidanka hadda soo weeraray tawfiiq waa ciidan ka tirsan beelo ka tirsan maxaa la yidhahdaa maamulka galmudug maxay tahay tallaabada dhankiina idinka qorshaysan annagu sidaanu horeyba uga shaqaynaynay waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu adkayno nabadda inaanu nabadda ka shaqayno inaanu walaalahay ugu baaqno in nabaddaas laga wada shaqeeyo maamulka galmudug mas-uuliyiintiisa heer gobol iyo heer ka sarreeyaba aanu ka wada shaqayno nabaddaas la adkeeyo dadka walaalaha oo deegaankaas wada degana waxaan ugu baaqaynaa in nabadda la qaato nabadda laga wada shaqeeyo colaada iyo qorigana meel la iska dhigo ma jira wax ciidana oo xagga idinka jooga idinka ka puntland ahaan ciidamada walaale qof kasta oo qori sita oo jooga deegaanka puntland waa puntland weye ciidan puntland weye qof deegaanka aanu ka hadlayno waa deegaan puntland tawfiiq waa puntland weye marka ciidamada jooga ha ahaadeen dadku beelaha ka tirsanaadeen dad shacaba ha ahaadeen oo hubaysan laakiin waa ciidan puntland weye ciidan dawladda u diiwaan gashan ayaan ka hadlayaa oo mushaar aad siisaan tababar qaba oo dhanka xuduudaha puntland ilaalintooda qayb ka ah ma jiraan oo tawfiiq idinku calaamad waa mahadsan tahay degmada tawfiiq waa degmo puntland waxaa ku yaala saldhigii booliiska waxaa jooga ciidamo booliisa waxaa jooga ciidamo daraawiisha oo ka diiwaan gashan marka waa deegaan shaqaynayo haydihii kala duwanoo dhan ka shaqaynayaan suurtagal ma tahay dhankiina tallaabo ciidan maadaama aad sheegayso in maleeshiyaad beeleed iyo ciidamo horey uga tirsanaa maamulkii galmudug ay duulaan kusoo qaadeen tawfiiq oo ka tirsan puntland suurtagal ma tahay dhankiina in aad ciidan u dirtaan annaga waxaanu mar walba adkaynaynaa nabadda waxaanu ka shaqaynaynaa nabadda walaalahayana waxaan ugu yeeraynaa in nabaddaas laga wada shaqeeyo dadka ehelka walaalaha oo caylada oo deegaankaas dariskaana waxaan ugu baaqaynaa nabaddaas in la wada qaato maamulkuna labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan nabaddaas in la xoojiyo meeshii joogtana dib loogu celiyo wax dambe oo dhacda oo tii maanta dhacday ka dambaysana aysan halkaa ka dhicin annaga dhankayga puntlandna waxaanu ka shaqaynaynaa haddii lahaynno inaysan wax xaggayga ka yimaadaa aysan dhicin oo aysan xagga kale usoo gudbin dhinaca kalena waxaanu ka filaynaa intaasoo kale aada buu mahadsan yahay wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo qadka telefoonka aan kula hadlayay waa mahadsan tahay wasiir idinkaa badan